السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت يقول حلو واسلامي سلامت مركا كسو نقضو جايس waxaa jirta anigoo barteeda Facebook iska wareegaya ama iska dhax socdo ayaa waxaa arkay fariin uu soo galiyay Dr. Liban inay ugu qoran tahay fariinta sirun ahaantii aad baa uga helay waxaan jeclaystay inaan la wadaago inamada ama gabdhaha walaalahayga inaan la soo share gareeyo fadlan waxaa idinka codsanayaa hadii aad tahay rag mise nin aadna fariintan heshay fadlan caawi haweenka ku dhow mise walaalahaaga ahaadan mise asxaabtaada inaa u sii share gareysid baa jeclaan lahaa sida aniga u share gareenayo marka soo dhawaada haddii haweeney ay gaarto muddadeeda caadada fadlan ha sameynin afartan waxyaabood koowaad ha cabin biyo baraf leh sidoo kale ha cabin cabitaanada kale ee fudfudud sida Fantada, Coca-Cola, Sprite iyo Pepsi. Lambarka labaad madaxaaga shaamboha marin sababtoo ah dulduleelada madaxaaga way ay furan yihiin xilliga caadada waxayna keeni kartaa madax xanuun ama arin khatar ah saameynteeda la dareemi karo markaad yar tahay iyo markaad sii weynaataba. Lambar 3 ha cunin qaja inta lagu guda jiro caadada sababtoo ah haraaga cad ee qajaarka wuxuu xanibi karaa dhiigga wasaqda ee bixi lahaa. Number 4 sidoo kale xilliga caadada jirkaaga ayaan la garaacin ama yuusan ku dhicin walxaha adag gaar ahaan caloosha sababtoo ah waxay keeni kartaa matag iyo ilmo galeenka oo dhaawac gaari kara ama inuu sababo kansarka ilmo galeenka. cilmi baaris ayaa muujinaysa cabida barafka inta lagu guda jiro xilliga caadada ay sababi karta dhiigga ku haro darbiyada ilmo galeenka muddo 5 ilaa 10 sano taasoo sababi karta kansare. fadlan macluumaadkan loo qaybiyo hooyooyinka iyo haweenka dhamaantood waadna mahadsantihiin sida quruxda badan leh aad la socotiin oo markasta ay daawatiin. waxaan jeclaan lahaa inaad fariintan sii faafisaan haddii aad rag tahay u sii gudbi walaashaada waxaa laga yaabaa inay isticmaasho afartan waxyaabood ee markastana ay ku dhacaan waxaa laga yaabaa inaad sabab u noqotid gabadhaas caafimaadkeeda walaashaada waana mahadsantihiin dhammaantiin meel kastoo joogtiin waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.